waxaan ka warbixinaynaa howlgalladii barakeysnaay ay maalmahan ka dhacay gobolada dalka. Waxa howlgal barakeysan ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose guutada 14 Oktoobar labadada urur iyo ciidamada Uganda ayaa howlgal qorsheysan waxay ka fuliyeen deegaano hoostaga tuulooyin hoostaga deegaanka Janaale. Deegaanadaas oo lagu kala magacaabo Kaytoy, Mushaane, Malable, Siigaale oo ku yaalo hareeraha deegaanka Janaale. Howlgalkaas ayaa sida loogu talagalay u dhacay waxaan lagu burburiyay cadawga khawaarijta al-Habaab meel ay ku lahaayeen ay ku dhuumalaysanayeen. Sidaas oo kale waxa howlgal barakeysan ka dhacay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka Commandoosta Danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgal qorsheysan ka fuliyay tuulada lagu magacaabo Farsooley ee gobolka Shabeellada Hoose. Howlgalkan ayaa lagu dilay mid ka mid ah horjoogayaashii qaraxyada kooxdu qaabilsanay oo ka mid ah kuwa ugu sharta badan oo dhibaateeya shacabka Soomaaliyeed. Horjoogahaas ayaa halkaas lagu khaarijiyay asaga iyo 3 dhagar qabe. Howlgalkaasna wuxuu u dhacay sida loogu talagalay. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa fuliyay howlgal qorsheysan tuulada lagu magacaabo Guudale oo 22 kiiloomitir u jiro dhanka bari kaga beegan magaalada Xudur ee gobolka Bakool. Howlgalkan oo si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa ujeedkiisa in lagu beegsado horjooga ka tirsan khawaarijta al-Habaab kaas oo ku dhoomalaysanayay deegaanka kaas oo lagu magacaabi jiray Aadan ugu yeeraan Sheekh Aadan. Horjoogahaas iyo horjoogayaashii kale oo la socday iyo dhagar qabayaashiba qaar la dilay iyo qaar dhaawac ay noqdeen. Howlgalkaasna wuxuu u dhacay sida loogu talagalay. Ciidanka deegaanka ayaa howlgal qorsheysan ka fuliyay magaalada Qeeycad ee koonfurta gobolka Mudug. Howlgalkaas ayaa wuxuu u dhacay sida loogu talagalay. Dadka deegaanka ayaana maqlay jugta hubka culus waxayna ka maqleen saldhigga ay ku dhuumalaysanayeen kooxda khawaarijta al-Habaab. Halkaasna waxa lagu burburiyay horjoogayaal waxaana loogu dilay dhagar qabayaal gaar ah ilaa 6 dhagar qabe. Geesiyaasha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan guutada 14 Oktoobar ayaa sidaas oo kale waxay ka badbaadeen shacab Soomaaliyeed loo dhigayo miino cadawga khawaarijta ugu dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed. Miinadaasna waxa ay soo bandhigeen shacabka Soomaaliyeed waxayna ka badbaadeen dhagartii cadawga ee maleegayeen. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan guutada 8aad qaybta 6aad ayaa howlgal qorsheysan ka fuliyay deegaanada dhac galbeedka gobolka Bay halkaas oo ay gabaad ka dhiganayeen maleeshiyaadka khawaarijta. Deegaanada sida gaarka howlgalka sifeynta looga sameeyay waxa kamid ah Garas Gamaan, Xinshiloole iyo deegaanka Wanay kuwaas oo qiyaastii 40 kiiloomitir u jira degmada Waajid ee gobolka Bakool. Sidaas oo kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan guutada lagu magacaabo 77 ururkada 86 iyo 85 oo iskaashanayo ayaa cadawga khawaarijta al-Habaab waxay ka sifeeyeen halka ay xuduud u ah gobolka Shabeellada Dhexe iyo gobolka Galgaduud gaar ahaan meesha lagu magacaabo Maray Suuley ilaa Hilowlagaab. Howlgalkaasna wuxuu u dhacay sida loogu talagalay waxaana lagu khaarijiyay cadawga khawaarijta al-Habaab oo maleegaya inay weeraraan shacabka Soomaaliyeed ku dhibaateen halkaas. Waa mahadsantiin oo bilaa tawfiiq.